إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. خطيبك خير الله سيئه وحنا هو الرمي shaydaanka madaakisha inaga soo galayo waa khatar. marka ani waxaan rabay nuqdo yar oo khusaysa inaan ka hadlo muqdisho oo lagu magacaabay tartanka quruxda gabdhaha. wixii meesha ka dhacay baa anoo qarinaya waxyaalo, laakiin aan kormari khatarta iyo musiibada inagu soo laba qolaan halis u nahay. nasaara in waddanka laga dhiga nasaara ama inta badan laga dhigo, iyo in laga dhigay inta badan raafida oo shiica ah. labadaa qolaan halis u nahay. horaan u sheegay sidaan u adrasayey oon u arkayay bay haddana u socotaa. laba qolaa laynoo isticmaali marka. qolo waa dadka dibadda jira, wixii ka gaaloobay baa loo soo dhiibay barnaamijkan oo keenaya, oo waxay keenayaan tansiir in waddanka laga dhigo nasaara. qolona waxa weeye oo qolada suufiyada iyo duruqda, iyaguna waxay wataan raafidada. walow aada iyo aad aan u bogaadinayo ama aan ku ammaanayo ninkii shiicada ahaay oo waktigii bidcadii mawliidka markay samaynayeen lagu dhex qabtay in la edbiyey. ninkii saa sameeyey oo ka muuqday baraha bulshada oo nin aan u maleeyin ku leeyahy dadkaa fiicana waa bogaadinaynaa, waana sheegaynaa magaciisa haddaan garanayo. laakiin mushkiladu halkay ka dhacday war sheekh waxay sameeyeen calan cirka ku shareeran oo yaa xuseen ku qoran yahay bay la soo baxeen. marka warku suu igu soo gaadhay, nimankii duruqtaa way kala jabeen. waxayna waxa naga daaya inayna maya dayn mayno, ila mishaar bay ku qaataan moogta. horta labadaa qolaa halis sunnaay. waxaa kaloo halis sunnaay qola saddexaad, waa hay-adaha samafalka. hadday biyo ka shaqaynayso, hadday laamay samaynayso, hadday tacliin ka shaqaynayso, hadday wax kale ka shaqaynayso, kulligood waa baadariyaal. waa baadari. wuxuu diinta kiristankaa buu rabaa inuu faafiyo. dib haddaan u yar noqdo wax yaroo kooban. markii dowladdu ay burburaysay, dowladduna way gardarrayd. jabhadihii ku soo wajahnaa cid ka qabatay ma jirin. waxaa ugu horreeyey oo dadka tusay waxay SSDF, waxaa ku xigay SNM, waxaa ku xigay nimanka loo odhanayay USC, waxaa kaloo ku xigay SBM. afartan ay ahaa wixii waqooyiga waxaa qaabilsanaa SNM, kuwana waxay qaabilsanaa halkan. laakiin SSDF markii dambe waa ka baxday. muqdisho markii la rabay in la burburiyo oo madaxii soomaalida ah, beesha caalamka way ka aamustay. waktigii mingistu ka baxayey oo qoladan hadda ku soo socota ay rabeen inay qabsadaan, mingista ka bax baa la yidhi waddankaa burburinin. haddana dhegaysta, wuxuu amerikaanku soo saaray iyo beesha caalamku soo saartay sababa in la badbaadiyo. anuu kama xumi oo sababta waxaa nisba ama 3 meelood 2 muslimiina oo mu'miniina oo hantidoodii iyo carruurtoodii dhex degan yihiin in la taabta ma ogoli. sababta nebiga sala allahu calayh wasalam sulxulxudaybiya markii laga celinayay, a'immadu waxay ku sheegeen dadkii ku dhex jiree la lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u diidanaa in dagaal lagu sameeyo oo in la dilo ama muslimiintuba gacantooda ku dhintaan 9 bay ahayeen baa la yidhi. 9 halkan malaayiin baa ku nool dad muslimiina oo guryo leh oo mu'miniina oo dad wanaagsan ku nool jiraan oo saalixiina. marka inaan la jeclaanama in la burburiyo dadka la baabi'iyo. xagga gaaladaba ha fiirinin masaakiinta ah, dadkeennii baa ku dhex nool oo anu kama xumi oo waa ku ayidsanahay inay nabad maaha ay magaalada ka dhicin. qoladii dooni ha qabsato. laakiin waxaan inii sheega nuqdada, innaga 2 sano bacdigeed markaan eberis ka dhignay baa lanoo soo gurmaday inuu soon baa soo gashay. halkan hadda loomaba ogoloba inay waxyeela gaadhaan.
ruushkii waad maqlayseen wuxuu yidhi etoobiya uma ogolin inay googo'do reer galbeedku ka sii daran amerikaanka waad dhegaysanayseen innaga laynama rabo maanta waxaa layna rabay inaan kanaa'is gallo inaan calal aqali qaxooti ku ururno xaalada hadda aan ku jirno lanooma ogolayn gabdhahan haddaan fiiriyey lama fiirin karo wanaaga qaaqaawano dee isu soo qurxiyey niman fasaqa ah baa daawanaya iyo gabdho kaloo faasiqiina haddaan u naxariisto waa fasaqa waa cusaad baa daawanaya waxaa lagu soo xardhay meesha calamadii kiristankii waxaa kaloo lagu sameeyey lalal la yidhi ololaya oo ka turjumaya lacagta meesha ka soo qaateen waxaa lagu sameeyey xeebta liidaa lagu sameeyey hoteel caana weeye waa la yaqaanaa hoteelka dadka maaragtay muslimiinta ku tirsan unbaa ku leele waxaa ninka soo tabiyey oo nin wanaagsana khayr allaha siiyo u duceeya ninka nin baa soo tabiyey oo soo ururiyey oo war dadkii muslimiintii meel baa lagaga dhacay war caqiidadii meel baa lagaga dhacay horta xijaabka waa la burburinaya waa la baabi'inaya xijaabka lama ogolo waxa ugu horreeya oo la tooganayo waa xijaab waa akhlaaqda waa aadaabta waxaan u malaynaya dowladda federaalkuna calaa mar'iyin inay tahay min alcayn inay arkayso u jeedo waxa halkaa ka dhacaya inay war moogtay u malayn maayo waxayna dowladdu ay rabtaa inay inta soo noqoto soomaaliya sii xukunto waxaana horteeda lagu samaynayaa oo kiristan ah calaamadii kiristanka marka waxaa lagu xarray dhulka meel kasta goortii dambena oo inta la taagayba waxaa lagu taagay jidaarka saliibkii oo sidiisii ah waxaa la rabaa gabadh soomaaliya inta meesha laga saaro ugu quruxsan in la geeyo tartanka ka socda nigeria war bilaa caleeg innagu maanta laba shay baa horta meeshan waa fisqi iyo waa qurun laakiin arrinta aan ka naxay waxa weeye saliibka gabdhahani dibadday ka yimaadeen waxay noo soo istiraan inooma keenin hay-aduhu moogtayo waxay noo keenayaan dawo waxay keenayaan cunto caana boodhe jid bay samaynayaan ceel bay qodayaan odayaasheenna way dabayaan odhanaya war hay-adaha noo badbaadiya haddee waa laynii badbaadina iska ilaaliya horta gaalnimadooda iyo qurunkooga iska ilaaliya waxa weeye sidii hay-adihii may samaynin toos bay u soo galeen malaayiin bay sitaan buu yidhi ninkaa ka warramayo nin wanaagsana hoteelkana waa qanciyeen oo lacag badan bay siiyeen dadkii waa kala dejiyeen haddaad lamaba daawan karo horta laakiin wax haddaad daawaday dadkii daawanaya sidiina haddaad soo daawanaysaan baan waxoogaa fiirfiiriyey oo rag baa dhallinyarba u badan yihiin oo maaragtay maxaan ku dhahda dadka cusaatayska ah ama waryow caalo waxba aan ka haynin gabdhaha haddaan fiiriyey ama waa nasaara ama waa munaafiqiin hadday ugu sahlan yihiin waxa weeye waa cusaad wayna ka fog yihiin cusaadnimadaan u malaynayaa ma maqlaysaan waddankan waxaa lala rabaa in la gaalaysiiyo haddaan la gaalaysiinna in laga dhiga raafida caayisa abubakar oo caayisa cumar oo caayisa asxaabta oo leh asxaabta waa gaalo way ridoobeen saasaa laynala rabaa warkaygani wax kale kuma fillo wuxuu ku wajahan yahay dadka muslimiinta ee soomaalida ee dibadda jira hadda dibadda waxa lagu qabtaa kulamo waxaa lagu qabtaa shirar waaba dagaalamayaanba iyagay naga fiican innagana saliibkii oo sidiisiibaa waxaan ka dooranaynaa casho yar iyo xoogaa shilimaad oo la siiyo baa ka dooranaynaa dadka dibadda inagaga adag baad mooddaa xagga islaamnimada iyo ilaashada ay ilaashanayaan akhlaaqdooda iyo aadaabtooda ay ilaalinayaan waxaa loo baahan yahay inaan fadhiga ka kacno inaan arrintaa ka hadalno wax kale ma hayno man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaanihi baan joognaa carab baan ku hadli karnaa hay-adahoo dhan dad fiican baa ka shaqeeya u diidi mayno inay waxoogaa ka cunaan mushaar ka qaataan laakiin waa in la iska ilaaliyaa sala allahu calaa muxamadin wacala alihi wasaxbi